وسيدة النساء أهل الجنة والريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطفى وحيد صلى الله عليه وسلم حداد معضو أبو تلفن كاير دمي إسلام يرى لانقاب لقى مشاكين وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم موقتها مركي لقى هذا موقتها لانديرها سيدا لانديرها لو دغيستا تلفونada iyo waxyaalaha yar lambarkii iska dhiga waxa jirta gabadha kaliya adduunka ilaahay gabdha intuu soo saaray laga mamnuucay in la guursado waa Faaduma Rasuul sallallahu alayhi wasallam وكفاه بذلك فخرا علي بن ابي طالب waxa xaraan ka ahayd inta uu sayida Faaduma qabay inuu naaka la guursado sabab nimankii reer Quraysheed ee reer Bani Hashim kiina iska bataan bay jeclaayeen oo laandheer iska noqdaan waxa la damcay sayid Ali in lagu qalqaaliyo islaan yar oo kale meelahan dhaxbar batiqa rasuulka warkii soo gaaray markaas yiri wallaahi inaysan ku kulmaynin hal nin rasuulka Ilaahay gabadhiisa iyo cadawga Ilaahay gabadhiisa ee midku raba ha doorto ma warba yaalaade kufuana xadun baad ka dhacday sida darteed waa Abu Jahl gabadhiisa ahayd ha wuxuu yiri inna Faadimata bid'atu minni gabadhayda Faadimihi waa gabal aniga iga mida ama saaftin ama hilib aniga iga mida yudini ma adaha waxa dhibaya yaa idhibaya والله inaysan isugu tagaynin xabiibka Ilaahay gabadhiisi iyo cadawga Ilaahay gabadhiisi ee mid raba ha doorto ma warba yaalaha jannin Faadima Rasuul haysamiya gabadh kala dooran kara masaa ku dhaca sida darteed waxa laga mamnuucay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda wa alayhi salam inta uu sayida Faaduma noolayd in gabadh kale la guursado waa gabadha kaliya laga ilaaliyay adduunka intay joogto soo rag afar ma banaaneen asxaabtii iyo maartay islaamku sama banayn illa sayid Ali bixayaati sayida Faadima bacda xayaatiha wixii la rabo loo fasaxay markii sayida Faadima ay maartay wafaaday kadib tiriibuha laakiin intii sayida Faadima noolayd oo fi xayaati sayidatina Faadima waxa mamnuuc ka ahayd gabadh kale inuu guursado ko